Assalamu alaikum guys, kusoo dhawaada vlog cusub catching up with Rayyan Royal. Maanta waxaan idin tusayaa maalin nololeedkayga. Maxaan dhihi jiray maalin nololeedkayga aan tusayaa sidaan u maareeyo gurigayga. Waxaan haystaa laba baby, hooyo laba ilmood haysta baan ahay. Babydeedii kale maanta waxaan geeyay daycare. dhowr saacadood bay soo joogtaa intaan guriga ka hagaajinayo aniga cunto karinayo deep cleaning baa sameynaya laundryga waxyaabahaasaan sameynaya marka ayadana waxay jeceshahay inay ciyaarto energy bay haysaa marka waxaan geeyay daycare family care saa u taqaanid marka aniga midii yarayda halkan joognaa babyda yarista oo iga xanuunsan tahay igu soo duceeya hargab baa ku dhacay wax kale kuma dhicin marka hargab ku dhaco ilmaha oo iska mayacoobaa iska qalqa oo iska micnaa ooyaan jijileec bay xoogaa noqdaan anigana waxaan jeclahay ilmahayga markay xanuunsan inaa I like to keep them close waxaan jeclahay inaa laabta gashto maxaa la dhihi jiray si aan u kobciyo maskaxiyan iyo physical maraq iyo waxyaabaha usa sameeyay oo hoosta gashto waxay u baahan yihiin hooyadood waxay u baahan yihiin inay hooyadood ku dhawaadaan marka inay hooyadood uunsadaan what am I saying guys iska dhaaf waxaas anyway aniga marka horta ahayso coffee baan ka bilaabayna coffee baan samaysanaya guys mashiinkayga waa kana halka aan ku haystaa mashiinkaan coffee ku samaystaa waxaan samaysanaya cappuccino sugaa inay tusee cappuccino samaysanaya halkan aan ku dhufanaysaa maxaa la dhihi jiray ani marka waxaan jeclahay strong laba iyo labaan ka dhigtaa koofiga saaid uma jecli sababtoo ah caloosha i xanuujiya kaale marka daawada qaxwa in ka soo stuuraya koofiga caloosha i xanuujiya laakiin hurda i heesa gaas hurdo si fiican uma seexan xalay sababtoo ah babyda iga xanuunsanayd sida sokorta soo qaatee sonkorta waxaan jeclaa ayadoo meesha ku jirta inaan ku darsado aan isticmaalaya halkaan ku daro sonkor okay intaan caanihi ku dhicin baan walaaqayaa dig sababta waxaan jeclahay inuu noqdo foamy caanaha markay ka soo baxaan ma jecla mashiinka caanihii buu diyaarinayaa u jeedaanin halkan waa kana saasa loo sameeya koofiga xaajigayga wuxuu jecel yahay koofi iyo qaxwaha saaid buu u jecel yahay marka mashiinkan marka isguursanay xariifkan waxaan ku idhahdaa walaalo mashiin aan soo gadano sababtoo ah 100 koofi badan buu maalin kasta soo gadan jiray waxaan ku idhaahdaa saaxiib fiijarka baybiyaal baa soo socdaa inaa lacag safe garaystid baa fiican marka maalin kasta haddaa dhahday 5 koofi baan banaanka soo gadanayaa sheekadan sheeko soconaysa ma jirto si naag khatar ah nin kasta oo nolosha meel ka gaara naag khatar ah ka dameysa fahanteen marka koofiga waa kana Soomaali baan ku bedelay marka aniga daaqada furay waxaan jeclay inaan daaqada iska furo qorax yar si jirkayga ugu dhacdo qorax markay jirka ku dhacdo way fiican tahay vitamin D baad ka helaysaa wayna ku kicinaysaa hurdo kastoo ka haysa maxaa la dhihi jiray marka guys babydeydii baan waxaan siinayaa sharoobo miskiinta ilkaha usoo baxaya marka ilmaha ilkaha usoo baxaya saaid bay u xanuustaaniin ilkaha maxaa la dhihi jiray dib waay wallahi ilmaha u xunyiin guys inima faahfaahinayo videoga sababtoo ah indhaa leedihiin waad aragtiin waxaan sameynaya laakiin waa iska sheekeysanaynaa micnaha waa iska sheekeysanaynaa insha allah sababtoo ah maxaaba idinka sheegayaa waaba aragtiin waxay aniga gurigii baan hagaajinayaa waana idin sheegay maxaa la dhihi jiray waxaan sameynaya maantay iska keedaa daawada xarfaantan maxaa la dhihi jiray wadanka qurbaha qaxooti baa lagu yahay wallahi bilaa wax kasta adigaa qabsanaysid Kenya iyo meelahaas iyo Afrika dadka jooga baan ka fikiraa iyo aniga berigaan joogi jiray
والله raaxo waaye dadkan arki jiray waxaa haysanaysa waxaa jooga dad ku caawinaya nolosha kula caawinaya laakiin halkan maxaa la jira wax ku caawiya ma arkaysid hooyanimada dumarka badankooda waxaa ku dhaca depression iyo stress iyo waxaas ku dhaca wallahi aniga haddana fiidiyogan soo duubayo 2 asbuuc ka horeeyay saaid baa maxaa la jiray down u ahaa saaid baa maxaa la jiray waxyaabo badan baa igu dhacdhacay maxaa la dhihi jiray sad baan noqday aniga dhan haddana alxamdulilah waan iska ducaystay ilaahay baan baryay inuu waxaan iga kor qaado murugadan iyo caajiskan iyo stresskan haddana waa mid kale gym baan iska soo qoray kadib xoogaa waan roonaaday maxaa la dhihi jiray naag iska dhig baan isdhahaa naag iska dhig marka beebideeda xambaarsada sababtoo ah haddaa hooyo tahay ma seexan kartid inaa maxaa la dhihi jiray dad baa ku sugaya stress iyo waxaas ma aragtay tabar looma hayo guys hadda meeshan aan clean garaynayo waan rabaa inaan idiin sheego muraayadan waa jeclahay meeshaas gurigeyga meelaha ugu jeclay ka mid tahay muraayadaas ranji dahaba baan ku sameeyay ani I painted with gold ranji oo dahaba xataa bahalka meesha ama saxay hadda aniga ranjiyay ranji dahaba oo yariis inta soo gatay baan saa u ranjiyay si qurux u noqoto meesha ani waxaan jeclahay dahabka waayadan dahab bay iga haysaa ilaaha markiis intaanan babyyaasheeda dhalin oo hooyo noqon dahabka waan nabcaan jiray xaajigeyga waxaan ku dhihi jiray diamond isoo gad wax kasta aan jeclaan jiray wuxuu ahaa diamond iyo maxaa la jiray silver iyo waxaa dahabkana saaid u nabcaan jiray waxaan dhihi jiray dahabka waxaan waa horeeta ah way haddana markaan hooyo noqday maxaa la jiray markii uurkii baan ka bilaabay dahab baan ku walaacay weligaa ma aragtay naag dahab ku walaacday ma aqaan walaa intay jiraan markii dahab baan gaas ku walaacay markaasaan waxaan ku dhahay xaajiga saaxiib dahab ii soo gad baan ku dhawayaa ilmahan qurqurxan baan ku siiyey yaa istaghfirullah baan ilaah baa siiyey laakiin dee waxaan ka wadaa marka dahab waxaan u dirsaday Nairobi sadkaan iskama dhigo sababtoo curadeyda markaan dhalay ma aragtay baan soo gatay saan ugu xasuusto sadka hadda aan xirnahay waaye ani waxaan jeclahay dahabka fiinaha baan jeclay ilaa markii dahabka waaweyn oo burbura ma jecli haddana waxaan ka yaabay dahabka maxay u design gareyn waayeen like dahab qurqurxan oo fiinaha maxay u sameyn waayeen wixii weligeed jiri jiray maalin kasta wadaanin waan ka yaabay dahabka maamooyinka waaweyn loogu talagalay kaleeto suuliga xoogaa baan dhaqdhaqay oo u jeedaan maxaa la dhihi jiray inay tusay waxaan dhaqaa ingiriiska waxaan ku lahaa fiidiyogan ma isticmaalayo macnaha bleachka sababtoo ah babydan xambaarsanahay so waxaan maxaa la dhihi jiray waa si fudud baan isaga dhaqdhaqay marka maxaa la dhihi jiray ilmaha hadda xambaarsantahay bleach iyo waxaas waa laga fogaadaa miskiintan ayadana haddana xanuunsanayd maalin kasta guys laundryga waan sameeyaa dharka waan dhaqa maalin kasta ilaahay amarkiis sababtoo ah dharkayga anaga qofkii hal mar maba la xirtoba mar haddii la xirto laguma laabtoba ilaahay amarkiis soo maalin kasta xaajigan oo dharka wuu dhaqaa anigana waan dhaqaa weekendigoo dhan asagaa dhaqa markuu guriga joogo macnaha wuxuu ku guraa bahalkan ku gurayaa kadibna saas u dhaqaa dharkayga maba mashiinkayga maba nasto maantana wax la dhaqaynaa haddana baybideyda yarista ah maxaa la dhihi jiray waxay qabtaa marmarka qaarkood maxaa Soomaali lagu dhahaa eczema cambaar miya abay cambaar ba u malaynaya walaalayaal cambaar intay qabtaa macnaha jirkeeda xoogaa gadgaduud iyo waxaasaa kasoo baxaa markay qaboobaha taa oo jirku qalalo miskiin ilmo badan baa qaba wadamadan jooga kuwa ka daran baan arkay cusbitaalka waanba ooyi gaaro wallaahi bilaahay markay aragtay ilmo yariisa cambaar qaba ay ilmo yaroo xanuunsan aniga waa kana waxaan xaraas aniga wallaahi waxaan rabaa inaa in la sheergareeyo nolosha dad waxa jira macnaha inta qurqurxan hooyanimada kaliya soo gudbiya laakiin reality-ga hooyanimada waxa waaye mess macnaha maxaa la jiray halkan aniga hadlaya maxaan leeyahay waan soo dhameeyay shaqadii wixii dhan waan soo dhameeyay waxaan leeyahay baybidana cunto siinayaa
ما waxaan dhahayaa baybida khalanigaye baybidaan soo seexinayaa waan daalay haraad baa hayaa saaid baa u haraaday saan u shaqeynayaa qoftan xambaarsan marka waxaan sameysanayaa cabitaan yar oo maxaa la dhihi jiray Soomaali waxa lagu dhahaa cabitaanka ku soo celinaya macnaa macdanta iyo dhididkii ka baxay hydrolytes ba Ingiriiska lagu dhahaa cabitaanka fuuq baxa ChatGPT baan weydiiyay waxay ku dhaheen fuuq bax astaghfirullah naani ma fuuq bixinay macnaa dhidid yar baa ka baxay wixii ka baxay fuuq bax wallahi qosol waay dhididkii iga baxay macnaha ayo energy ma aragtay cabitaankan ku okay cabitaanka macdanta ku soo celinaya waay marka cabitaankan waan jeclahay maxaa la jiray cabitaan yar waxa waaye bahal yar qasanayso sida oranjada iyo kaleeto kan marka waxa waaye fruityo badan oo la isku dardaray flavor badan bay isku dardareen marka kana cabaa sababtoo ah biyaha waan ilaawo inta cabo marka waxay ka dhigan tahay adigoo biyo badan cabay hal mar hadda cabtid ma aragtay biyo badan adoo cabay hadda jirku ku qoynaya marka Ingiriiskan ku sharaxay cabitaankan baybidina way hurdaa hadda mar dhawaan maxaa la jiray soo seexinaya insha Allah marka aan fiidiyogan ka baxo laakiin wallahi gaas qosolka adduunka aniga markii igu horeysay markii labaad oo aan fiidiyo cod ka saaray meelan ka bilaaban garan waaye haddana waxaan rabay asxaabteeda Soomaali ku hadashay inaan fiidiyoga inii soo sameeyo oo aan fahmaynin maxaa la jiray Ingiriis xoogaa yar ka fahmaya Soomaali haddana waa fahnaa luqad badan والله بلاد active أنا Soomaali haddaan nahay haddaynan wada fahmayn xataa wax un baan ka fahanaa yaa bahalkayga madaxa ku xiranahay qosol I like it wallahi shaanadaas ayaan tan iga heesaa aniga marka waxaan ku dhahay waan isdhibayaa wallahi daal wadankan bismillah ina iskaga tagay iga heesaa meel iska nasto haddana baybid baan soo seexinayaa waa anigii naaska u dhigaya sariirtan geeya markaas saa uga kacisdho xarfaantan samadaas u boodaysaa ma seexanayo 2 mar inta maalintii 2 mar baan sariirta geeyay kadibna soo kacday hadda waa anigan waan ka soo baxay sariirtan geeyay marka waxaan sameysanayaa cunto gaajo ay haysay wallahi billahi mid kale markaa naas nuujinaysa gaajada waan ka yaabay marka ilmo naas u dhigaysid gaajada nafta ka qabanaysa bismillah haddana ilmaha malaha baybida markay weynaataba kasii dartaan isdhahayba xarfaanta maba ka dharkiiso naaskii markaas maanta nam habeen iyo maalin wallahi waan qalalay marka aniga gaajadaas iska kahaysaa markasta oo maxaa la jiray aan naas nuujiyo marka waxaan cunay cunto maxaa la jiray fridge igu jirta oo maxaa la jiray habeenkii horeeto wadamadan maalin kasta wax fresh lama karsado inkasta anigu jeclay inaan wax fresh karsado laakiin maanta busy baan ahaa marka waxaan sameystay waxaan cunay kabaab iyo waxa waaye waxaan cunay kabaab iyo chips isku jira baan roodush ka saaray waxaan ku soo darsaday strawberry aniga kama kaftamo fitamiinada iyo wax kasta oo aan helo isku dhex dara dhinacan ka saar sababtoo waxaan rabaa like fitamiino badan inta jirkayga galaanin aan u baahanahay because ilmaha markaa naas nuujinaysa wax macdan jirkaaga ku jirta waxa nafaqo ku jirta oo dhan ayaga ka dhuuqaya kadibna baybidu iga xanuunsanayd halka baahayay waxaan sameeyay maraqaana sameeyay aniga waxaan jeclahay maraqa iyo waxyaabaha qoqoyan oo kale wax kasta oo jirka biyo gelinaya ma jeclahay macna jirkaaga ka dhigaya maxaa la jiray hydration dadka badankood jirka xorsan biyaha ku maqan marka suubka saaid baan u jeclahay maraqa iyo waxyaabaha maxaa la jilicsan ma jeclahay marka maraqaana meesha ugu soo sameeyay waxaan ku daray hilib waaye meeshan ku jira hilib lo'aad iyo koosto iyo baradho iyo yaanyo waxa dhan hal mar aan isugu rido qudaarta intaan soo dhaqay kadibna markii saaid isugu
u bislaato ayadaaba kala dhaadhacaysa. marka maraqa wuu fiican yahay ilmaha jirkooda macnaha difaaca jirka difaaca iyo waxyaabahaas waaba ogtihiin Soomaalida dadkiin maraqa suu fiican waa ognahay marka qaarkood waxaan sameeyaa digsigan intaan kariyo baan waxaan sameeyaa freezerkaan geliyaa hadhowdii marka ilmaha cunto siinayaan wax cuntada ugu dhex qasaa qaarna waa cabnaa markii ama waxaa la jira bariis iyo waxaasan ku darsanaa marka maraqa saaid buu caafimaad badan yahay ilaahayo haddaadan xataa hilibka aadan gadan karin lafahaba ku jiraaba macdanta maxaa la jira marka saas waa maraqaasan kariyay kadib toon baan ku daray iyo maxaan kaloo ku daray waxaan ku daray toon iyo geedo shiidan baan ku daray aniga geedaha kaleeto iima oolay marka geedo shiidan ba iyo sinjibiil geedo kulaha wallahi Soomaali hadaan nahay waa kala lahjad duwan waxa laga yaabaa inaydin fahmayn lahjadayda laakiin sinjibiil baan ku darayaa shiidan waa tana xoogaa curry powder toon waxaan ku daray huruud baan ku daray huruudan waxa u fiican tahay jirka difaaciisa huruudan inaga Soomaalida nahay waxa qaar baa waxa u yaqaaneen wajiga iyo jirka la marsado laakiin cuntada xataa waa lagu darsadaa marka huruud baan ku daray waxyaabahaas ilmahayga markaan si ilaahay amarkiis way ku fiicnaadaan alxamdulillah xanuunku ka baa hargabkii laba maalin macnaha dhowr bari uu ka soo ba'aaba maraqaas u siinayo iyo biyo badan iyo waxaas la siiyo ilmaha markay xanuunsan yihiin waxaan kaloo ku daray kaarooto wixii oo laa baan ku daray kadibna baybidan siinay uga soo tuuray intaanan kadib baybidaydii labaad gabadhaydii curadeydii baan waxaan geeyaa meel daycare hal maalin oo maxaa la jiray kamida asbuucii si aan guriga uga shaqeeyo ama u aado ballamo aan leeyahay iyo waxyaabahaas ayadana saaid bay u jeceshahay ilmaha intay la ciyaarto marka dadka badankood waxay geeyaan 3 bari laakiin aniga waxaan geeyaa hal maalin sababtoo abaaye wallahi waanba isku walaalo waanba isku maxaa la jiray hayn waaye labadii ilmood iyo guriga shaqadiisii marka dhowr saacadood bay soo joogtaa kadib markaa cuntada siiyo mid yarista baan walaasheed soo qaadana waan u xiisaa baybideeda markay iga maqan tahay waxaan dareemaa aniga dhan guilty macnaha waxaan dareemaa calool xanuun waxaan dhahaa allah baybideydii ilaahay wax dhiba iga tuseen curadayda waan u duceeyaa marka curadaydii yareed baan soo qaadayaa kadib waana kana aniga Aisha la dhahaa gabadha iigu soo duceeyay walaalayaal maasha Allah dhahaya Allahumma baarik dhahaya waan u heesayaa huwaaya baan ku hayay majidaa aniga aqaana ilmahaas loogu heeso sababtoo aniga yariisa waxaan soo hayn jiray walaalahay baan soo koriyay anoo yar oo u heesi jiray oo waxaan baari jiray intaas alxamdulillah haddana waa kana kuweygii baan sida u sameynaya ilaahay subxaana watacaala ha ina gaarsiiyo ininkana intii maxaa la dhihi jiray hadda walaalahooda haysa iyo intii soo hayn jirtay ininkana ilaahay subxaana watacaala ha ina ku sino ama inii rumee riyad inaa baybiyaashiin aad dhasheen saan u qaadqaadiin oo ugu heestaan intaan maxaa la jiray ilaahay wali ku irsaaqina ilaahay subxaana watacaala ha ku irsaaqa awlaad marka vlog waan soo xiraya guys iisoo duceey insha Allah videogana like garay haddaad ka hesheen video Soomaali waan soo gelinayaa Ingiriisna waan soo gelinayaa sababtoo waxaan rabaa inaad dad badan i fahmaaniin marka waa kaasaa maxaa la jiray guys noo soo duceeyani baybiyaashayda ilaahay subxaana watacaala inuu na hanuuniyo oo na xifdiyo oo na hadeeyo oo na caafiyo wallaahi bilaahi aniga waxaan ahay dadka khayrka waan la jeclahay haddaa qof dadka khayr la jeceltaana ilaahay khayr iyo nimco kuu siyaadinaya marka waa kaasaa guys gadaasheeda xoogaa guriga xoogaa waa isku yaacsan yahay hadda waxaan sameynayaa baybidaydii baan soo qaadayaa waaba kana waan soo qaaday baybidii waan kasoo kaxay meesha waxaan siiyay shower qabeyska way jeceshahay waan isla ciyaaraa inaan la ciyaaraa jeclahay maxaa la dhihi jiray
marka guriga keeno maalintii aan kala maqnayn baan waxaan rabaa micnaa inaa gudo inta iga maqnayd ma aragtay ayada maba kala jeclaba hadday dad hesho se u jecesha caruurta intay la ciyaarto saa ugu xiisa maba ii xiista inkasta igu soo orado markaan tago mama igu dhahdaa marka markay ka imaato meelaha daykeerka meel ciida lagu ciyaaro madaxii oo ciid ka buuxo bay imaataa maxaa la jira say maantana u ciyaareyso meesha ciid bay leeyihiin kabaheeda wixii dhan ciid baa ka buuxday marka wallahi hadalkana way kusoo barataa ilmo badan oo maxaa la jira Soomaali iyo muslimiin ay waxaas isla aadaan sanadkan mar dhowna waxay bilaabaysaa iskuulka caadiga way bilaabaysaa mar dhow kingdom mid lay bilaabaysaa guys mid kale babydeeda dhalashadeeda waa labadoodba dhalashadooda soo socota midna waxay dhalatay 9aad midna waxay dhalatay 10aad waxaan rabaa inaan soo duubo video aan u dabaaldegayo waxoogaa yar guriga dhalashadooda adeeg inta aada waaye ila soo socotay hadaa rabtiin inaan inii soo duubo